hoggaanka madasha ay ku midaysan yihiin xisbiyada qaran ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo jir sharaa'id ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadleen xaaladda guud ee Soomaaliya waxaanay dhaliilo culus u soo jeediyeen madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waa kuwan mas'uuliyiinta oo ka hadlaya arrimahaasi sida la socotiin madaxweynaha wuxuu hadal jeedin ka sameeyay baarlamaanka oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo wixii soo qabsoomay arinta labaadna waxay ahaaday kulamadii dhacay guddoonka baarlamaanka iyo madasha dhexmaray iyo xaaladda dalka iyo doorashooyinka marka hore waxaan wada ognahay dalkan doorashooyinka ugu dambeeyay waxa la xaqiijiyay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ku faani karaan in doorashada xilligeeda lagu qabto doorasho degan oo laga wada tashaday oo natiijadeeda la wada ixtiraamo ay noqoto waa guul dadka Soomaaliyeed soo hooyatay oo ayna muhiim tahay in la xaqiijiyo arintaas madashu iyadoo taas ka duulaysa waxay aaminsan tahay in laga maarmaan tahay doorashooyinku inay waqtigooda ku dhacaan ay noqdaan doorashooyin hufan laga wada tashaday raali laga yahay natiijadeedana qof walba Soomaali oo diyaar u yahay inuu fuliyo sidaas darteed madashu waxay ka digaysaa muddo kororsi magac kasta loo bixiyo oo ay ka shaqeyso xukuumadda si taas loo gaaro waxa laga maarmaan wada hadal dhab ah oo ku aadan arrintaas oo saamilada siyaasadeed dhamaantood ay ka wada qayb qaataan dawladda xubnaha ka ama dawladaha xubnaha ka ah maxaan ku yiraahdaa dawladda dhexe ay ka wada qayb qaataan ama saamilada siyaasadeed dhamaantood taasi loo helo waxay u baahan tahay abuuris jawi kalsooni xasilooni iyo wada tashi madaxweyne waqti aan ku socdo waliba madaxweynaha waxaan rabaa si gaar ah inaan ula dardaarmo waqtigu qofku ku socdo waliba madaxweynuhu waa asaga oo waqtiga loo igmaday oo ka dhacayo dawlad goboleedadan shalay la soo wada doortay waqti kuma socdo wali annaguna xil ma bahayno hadda waqti aan naga dhaco waayo meel uu nooga dhaca ma balihin mogtahay ma bahayna waa joognaa laakiin madaxweynuhu adoo waqti ka dhamaanaya choice-kana adaa iska leh choice-ka kood qaadatana cawaaqib ka dhashay iyo consequences waxa afqalaad ugu yiraahdo leeyahay sharaf iyo karaamo adoo leh oo dalkaagii meeshii iyo waajibka ku saartay si fiican uga gudbay ayaa waqtigaaga dhamaana ama ayadoo la isjiijiiday loo asaa noolahay lagu yiraahdo waliga laga sii waxeeyo taariikhda Soomaaliya marka la soo sheegabo maalintaas dibkii dhacayaa lahay ninka odagaas mas'uulka ahayoo lahaayo dalka badbaadiyo marka adaa iska leh kala dooro annaguna waxaan diyaar u nahay waxa danta Soomaaliyeed ah hadaad keento inaan kala shaqeyno lagugu hakramaayo lagugu deymaayo laakiin wixii dandarra ah lagaaga aamusi maayo wixii gaf ah lagaaga aamusi maayo waxaan qaanuunka iyo sharciga iyo dastuurka yarkaan ku heshiina aanu qabin lagaaga aamusi maayo lagaagana xishoo maayo runta sida taa lagu sheega runta raga kama dhicisaan dhihi jiray waa rajaynaynaa inayna ka nixin marka arinta doorashadu waa arin taagan walina waa gacan calool ku jirta lama yaqaano waxa ka soo bixi doona ilaa yawmana hada oo aan leenahay way soo muuqataa meeshii maratonka uu ku dhamaanayo orodka maratonka hadii la soo ordo qofka ugu soo horeeyay meelo xariga ku gooyaa Soomaa xarigiya soo muuqdo oo maratonka ku soo dhamaanayo oo la gaari waqtigeedii ma aha